السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada aqoon doon channel. maanta muuqaalkeenu wuxuu ku saabsanaan doonaa sidee sawir PowerPoint lagu design gareeyaa ama loogu habeeyaa. Okay, PowerPoint-ga waxaanu ka dooranaynaa blank presentation. kadib waxaad iska dhileedaa text box-kan, sidoo kale kan iska dhileed. marka hore selected kadib waxaad tiraahdaa delete. background-kiina waa cadaan. si aad background-ka doonto u isticmaasho waxaad tiraahdaa right click format background. kadib waxaad ku dhufataa color oo waxaad ka doorataa color-ka doonto. aniga waxaan isticmaali doonaa dark blue-gaas color-ka ah. kadib waxaad tiraahdaa insert shapes. waxaad ka doorataa rectangle shape. centerka imo sidaa ugu jiid. kadib waxaad tiraahdaa rotate. si rotationku uu noogu saxmo waxaanu dhahaynaa view. kadib waxaanu soo dooranaynaa guides oo noo sahlaya inaan positionka rotationka aanu saxno. kadib sidaa oo kale yeel. okay, sidaa markuu kugu saxmo waxaad tiraahdaa select garee marka hore. kadib control D dheh si aad copy ugu bixiso. halkaas oo kale dhig. mar labaad control D dheh si aad copy labaad ugu bixiso. kana halkaas soo dhig. kadib waxaad tiraahdaa right click send to back. sidoo kale kan bidixna dooro. waxaad tiraahdaa right click send to back. kadib waxaanu soo gelinaynaa shape walba sawir. waxaad tiraahdaa marka hore shape-ka dooro, format dheh. kadib picture or text fill ku dhufo. kadib waxaad tiraahdaa file. sawirada ku yaalo ama computerka kugu jira mid ka mid ah soo dooro. tusaale kale waxaan soo doortay sawirka. kadib waxaa leedahay insert. haddaad aragto sawirkaada inuu sidan u janjeero waxaad tiraahdaa rotate with shape. tigta ka qaad oo macnaha waxaa waaye shape-ka inuu la rogmo. tigta ka qaad si uu kugu tooso. kadib size-ka arabto u dhiibo. mar labaad processki waxaad doortaa sawirka shape-ka ku xiga. kadib waxaad tiraahdaa format. kadib picture or text fill. kadib file leh. soo dooro sawirka kugu jira, insert leh. sidii oo kale rotate with shape. tigta ka qaad. waxaad mar kale doorataa sawirka shape-ka ku xiga. kadib waxaad tiraahdaa format. hadduu sidan diyaar uu kugu yahay waxaad tiraahdaa picture or texture fill. kadib file leh. sawirka rabto soo geli. kadib waxaad tigta ka qaadaa rotate with shape. waxaad doorataa saddexda sawir adigoo qabanaya control-ka mid u dooro.
kadib waxaad tiraahdaa format, kadib waxaad tiraahdaa picture effect, kadib waxaad tiraahdaa preset oo aad ka dooran doonto preset 5. si aad isaga qaado guideline-kan waxaad tiraahdaa view, kadib waxaad ka qaadaa guides. waan filayaa inuu aad u qurux badan yahay design-ka. kadib si aad text usoo geliso waxaad leedahay insert shapes text box, kadib qoraalka doonto u qoro. size-kana waa optional, size-ka doonto ka dhigo. color-kana waxaad ka dhigataa white. guud ahaan cashirkeenu intaa buu noogu egyahay maanta. waan filayaa inaad ka heshay muuqaalka. marnaba ha mogaan inaad tiraahdo subscribe, saartana like, share na dhahdo muuqaalka.